sida rabbiga ka doonaya adigu yeel nolosha adduunyada ilaahay ba ku fudaydin ma fahmi waaysid nolosha adduunyada markaas wallahi nabigeenu sallallahu alayhi wasallam meel yar buu naga tusay meel yar xadiis fi sahihayn meel yar sunan saxaabi baa nabiga u yimid oo ya rasuulallah marka ilaahay aan baryayo salligaaga ducadeyda marka nafar u qaybiyo qayb baan ka dhigay ka waran buu kay marka uu nabigu ku yiri waa khayr hadaad ka ziyadisay kasi khayr badan bal xadiiska dhageysta marka saxaabiga marka loo qaybiyo salligaaga qayb baa ka dhigay labana de anna bashar baan muraadkiisa ilaahay u sheegan marka uu nabigu waa khayr fa yazidta fa huwa khayrun laka hadaad biirisana kaga si khayr badan marka suuri saddex markaan u qaybiyo laba qaybood salligaaga ka dhigi midna ana baahidayda ilaahay u sheegan waa khayr buu nabigu ku yiri hadaad ka ziyadisaase kaga khayr badan hadana wuxuu yiri sidaas markaas uu saxaabigii aba wuxuu yiri haduu arinku sidaaba yahayba ducadeydii dhanayd baa intuu halkaas ka dhigo ayaa salligaaga ku bilaabay salligaaga ku dhameey marka uu nabigu ku yiri idan tukfa hammuka wa yughfaru laka dhanbuka bukay hadii markaad gacmaha ilaahay hor taagto ducadii dhanayd aad salligayga ku bilaabdo salligaygana aad ku gabagabaysidba waxa li wixii adduunyada hammi aad lahayd oo dhan waa lagu qabtay waad heshay dambigaagina wala dhaafay rasuulku kay sirta nolosha ma tahay sama halkaas laakiin indhihi lagu arkay Allah nasiib indhihi khayrka lagu arkayay ee quraanka lagu arkayay ee salliga nabiga lagu arkayay qiimihiisa ee ducooyinka nabiga nasiiya lagu arkayay indhahaas waa indhaha qalbiga Allah inoo furo waxa nabigu ninka ugu jawaabay bal dhageyso hadii ducadaadii dhanayd salligayga ku soo koobtid adduunka dusheeda wixii hammi humuumad lahay hammiga bini aadamka adduunka waa laba weeyaan mashkalad haysata oo xal u raadinayo iyo xaajo uu leeyahay oo cid u qumisa uu doonayo labadaaba wada shay rasuulku kay aakhirana ma taqaana qofka muslimka waxa haysta wuxuu ka aakhira markii la hor joojiyo ilaahay waxa ka cabsi qaba waa maxay war muxuu ka cabsi qaba waa dambigina waa laga dhaafay rasuulku waa salligii nabigeena kaleey salaatu wasalaam ayuu nabigu noogu sheegay sirta adduunyada nolosha inay halka ku jirto ee sirta aakhirada adduunyadana wixii hammi aad lahayd oo dhan hammiguna waa labada ay dhageysto waa nigu celinay waa mashkalad ku haysata adiga oo xal aad u raadinaysid iyo xaaje aad leedahay oo cid ku qumisa aad doonaysid ilaahay baa ku dabool mashaakilkiina ilaahay baa ka faydi xaajadaadina ilaahay baa ku qumin aakhirada hamiga ugu weynee qofka muslimka hor yaalla oo qof walba ka baqayna waa maxay waa dambigiina waa laga dhaafay rasuulku waa salliga nabiga فنكسر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سلقي سام بدنينا سلقي سوى مناجات علماء الإسلام بقار وحيد هذا ما ذكرك إله إلا حصى يا فل بدن مثل سلق النبي عليه الصلاة والسلام قال عياض رحمه الله في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى وحقوق شيء صلق على سكر عين فل بدنيه ما الدليل على ذلك بالويري وحيد هذا العلماء فقه هذا هاي إلهي النورانية دوسية سبحان الله مركات تراديد بالنبي يقولي قيد بالجنة لقاقب بيرا الحمد لله مركات تراديد قيد بالجنة لقاقب بيرا لا إله إلا الله مركات تراديد قيد بالجنة لقاقب بيرا الله أكبر مركات تراديد قيد بالجنة لقاقب بيرا ولكن سلق النبي قصة النقو من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات نيكا مر يقول صلي يا ابو النبي يقولي إلهي نحريس درجات إي ويديا إسقنا 8 جرب إلهي ونحريستا قيد جنة لقاقب بيري هي 8 جرب إلهي ونحريس انتقافا لذلك نكثر صلوات النبي عليه الصلاة والسلام وإن صلق النبي نبضنا وإن المناجات ساعدها ضمبين إلهي لا مناجون إنه وإن النبي كصلنا عليه الصلاة والسلام وإن نوحي النبي كوينا إنك وين نقوينا ذلك